Amaha ugu waaweyn ee lagu garan karo fayraska koronaha waa qufac qalalan oo joogto ah iyo qandho daran. Haddii aad si isdaba joog ah u hindhisto ama biyo badan sankaaga ka socdaan, mar kasta macnaheedu ma aha inuu ku hayo fayraska corona. Haddaba qufaca qalalan ee fayraska corona waa sidee? waa marka aad si isdaba joog ah u qufacdo isla markaana aanad xaakoon ama aanad arag unugyo iyo xab ka soo dhaca. Lagama hadlayo qufaca caadiga ah, waa mid isdaba joog ah oo aanay jirin sabab kale oo kaliftay, sida inaad wax ku margatay ama sigaar cabistu sababtay. haddii ay qandho daran ku qabato oo aad bixin weydo, ogsoonow tan fayraska corona waxaa lagu qiyaasaa inay gaari karto in ka badan 37.8 darajo oo Celsius ah. Laakiin haddii aadan haysan qalabka qandhada lagu cabiro, waxaad ku garan kartaa in kulayl xad dhaaf ah uu ku hayo oo xabadka iyo dhabarku ku kulul yihiin. haddii aad iska hesho mid ka mid ah calaamadahan, adiga iyo qof kasta oo aad la nooshahay waa inaad guriga ku nagaataan ugu yaraan 2 toddobaad. farxalato waxaad xanuunka ka xijaabaysaa inuu dadka kale u gudbo. haddii aad dibadda u baxdo ama aad tagto goobaha bulshada ama aad bas iyo tareen mid uun raacdo, dhaq gacmahaaga marka ugu horraysa ee aad fursad u hesho. markaad gacmaha dhaqatana adigoo masar adeegsanaya ku nadiifi weelka aad ku farxalatay, deetana qashinka ku rid. kareemooyinka jeermiska dila waad isticmaali kartaa, laakiin saabuun iyo biyo inaad isticmaasho ayaa ka wacan. iska ilaali inaad taabato indhaha, sanka iyo afka, sababtoo ah saddexdaasi waa marinada uu fayrasku jirkaaga ugu gudbi karo. waxaa wanaagsan inaad wejigaaga taabato keliya marka aad gacmaha dhaqato kadib. xaji qufaca iyo hindhisada. khubaradu waxa ay sheegayaan in fayraska koronuhu uu si degdeg ah ugu faafo firirka ka soo bixi kara afkaaga iyo sankaaga. haddaba marka aad hindhisayso, isku day inaad xajiso oo aadan gudbin. ku hindhis masar ama warqad, dabadeedna qashinka ku tuur, gacmahaagana dhaq. warqadaha afka lagu tirtirto ayaa ka wanaagsan masarka la qaato. isku day inaad mar kasta mid sidato. haddii aadan sidan warqadaha afka lagu tirtirto, hindhisada iyo qufaca ku hagaaji kala goyska gacanta dhanka kale ee xusulka. iska ilaali inaad gacmaha ku taabato waxyaabo aadan u baahnayn. inta aad ka fogaan karto taabashada waxyaabaha sida gacanta, albaabada, jardiinooyinka, badhamada weeshka iyo wixii la mid ah, waa inta aad u jirto inaad ka badbaado xanuunka.